السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسو دوادا برنامج كيني تحاناها الشيخ حرير. ما أنت هالكن وحان إذن كشيك دونا قيبتي كواد شيك اللي يدعدو دالمر دلمر مفلنين أو الشيكة شعيل أو ميغا كدعضي دالمر وحوها نين دوبة أو قدومي جيلا أقاسمي ديسة قورينا كديرادي هالكو جيلا كوهيي بامهيغان كوهري ماينا كوا برستي diriradii di'i jiray daydo dirir sagaaro iyo dirir cawleed intuba way da'een haddana cirkii intaa wuu istaagi waayey oo intuu isa soo cuncuno ayuu mar kastaba da'ayay habeenkaas waxaa isu raacay labadaas oo ah mayaga iyo mahiigaanka habeenkii oo dhan roobkaas wuu da'ayay sidaasoo ay tahay dalmar dhinaca ayuu dhulka ku hayay biyuhuna hareeraha ayay uga dhacayeen markii oogu istaagay ayuu dalmar kacay wuu istaagay geelii ayuu dhex marmaray halkii uu ka kacayna iyadaad moodo inaan bari ku tiixin iyadoo dhulka oo dhan ay xareedu wadhan tahay duulane oo walaalkii ahaayoo ka yaraa wuu jiifay weli wuxuu dhegaystay raha hareeraha kaceeya oo ka dhaadhaale wax uu geelii dhex mara oo uu eego in waxay wax noqdeen aarankii iyo nirgihii iyo duqihii iyo wixii oo dhan geelii oo dhan inuu nabad qabo markuu arkay ayuu haddana dibadda intuu u baxay ayuu duleedka warwareegay isaga oo dhegaysanaya bal inay dhici karto libaax intuu iska soo jibaaxo inuu geela soo dhex galo oo meelahan uu taagan yahay wuxuu arkay in ay wax waliba ay dhaambayaan oo aanay socon karayn markii nin iyo geed la kala gartay ayuu ku yidhi duulane intuu geelii ooda barbar dhigay sii dareeri intaan go'yaasha soo engejisanayo dabadeedna wuxuu aad iyo aad intii uu geelii ka yar dabadeed ka daba daqaqamay ayuu wuxuu arkay ugaadhii oo dhaabantay hadday ahaayeen biciid goodir cawl garanuug dibtaag bacayr iyo ilaa sagaaradii iyo bakaylihii wuxuu geelii markuu u tegey uu arkay isagoo ku xasilay doh ay caleentu hamashowday wuxuu arkay dhulkii daadku xalayto mulacyeeyey oo roob la dhacdu sunsumayso cadceeddii soo baxdayna cadceeddii soo baxday fallaadhyaheedii ay dhibicdii caleenta saarnayd dhalaalisay in badan ayuu geela kan ku soo howlanaa dalmar isagoo yar markii uu dab ka baydhay siduu u raacay intaa wuu xerinayay wax badan buu ooday wax badan buu arooriyey oo waraabiyey diraacdii dhoweyd marka uu shubayo oo geelu soo hormo ayuu wuxuu odhan jiray aan hamhamanee in yar noo hogo marka uu geelu uu waraabinayo oo uu biyaha cabbayo ayuu heesi jiray isagoo ceelka ku jira oo isha ku jira wuxuu odhan jiray ceelan kuu galay ciil kuma qabtide cawska dabadda ah ay carruuruhu kaa celceliyeen ciil ma ka qabtaa dayrtii dhoweydna geela wuxuu ku hayay iyaduba barwaaqay ahayde dhulka ay ka mid yihiin ba'ay siya barooran libaax qowdhama iyo dulo kale oo u dhow haddeertana meeshuu joogaa waa dhudhubo oo aad iyo aad uu roobku ugu da'ay oo dheragtay ciiddu wuxuu garanayay kolleybaa inkastaanu u muuqanayn inay iska daa ugaadhoo dugaagguna ay dhaaban yihiin libaaxa maxay hayto harimcadka shabeelka ilaa iyo marka lagu daro jiifaaga iyo kuwa kasii yaryar wuxuu markaa sameeyey dundumo gaaban ayuu dusheeda ku fadhiistay isagoo kadalooba ayuu ushiisii dhulka ku xardhay wuxuu ka tashanayay aayihiisa isaga oo isla hadlaya ayuu maqlay sanqadh hadduu foodda kor u qaaday waa inan bilicsan oo ku soo aadan markay indhahoodii isku dhaceen ayay ka leexatay dundumadii ayuu ka degay si uu u ilaaqdo oo uu feedha ka raaco
iyadaa ka faano horraysay. wuxuu arkay inay tahay inan dheer. wuxuu arkay inay si habsoon tallaabada ay u qaadayso. waxay sidatay maro 3 qayda iyo boqor daraya Muuse, waxaana degta u saarayd gudin. wuxuu gartay inay doonayso inay maydhax soo diirato ay ku samayso caws. waxa uu isagoo sii daba socda uu halacsaday inay labadeeda qaar babuuxaan oo isleeg yihiin, dhexdeeduna ay qabatin tahay sida baarqabkoodii ina geydho oo malada'ay oo kala go'ay. timaheeduna waxay ka degeen sinta, waxaad moodaysay kuwa goray hadhaaga. markii uu soo gaadhay ayuu bariidiyey. wuxuu yidhi, adiga waa ku arkaaye beeshii aad ka timi ma lagu bariyey? waxay tidhi, la bariye geel jirow, idinkuna ma barideen, annana waanu barinay buu yidhi. wuxuu yidhi, waan ku arkaa waxaad doonaysaa inaad soo diirato maydhaxe, geedka liisha leh ee aad soo arkootay aan kuu gooyee itus. halkii ayay israaceen. intaas way sii sheekaysanayeen. waxay kuwa ka hadlayeen haasaawo hufan. dhulka lagama aqoon xumaan. waxa keliya oo laga wada hadlo oo lagu haya laabta waa guur. wax kale ma jirin. gaabsi lagama aqoon dhulkaas. markii geedkii uu koray oo uu goonayo ayuu marba halacsanayay. wuxuu arkay in aad foolkeedu uu aad moodo inuu iska dhaashan yahay, haddii ay labeen ku soo dhaashatay iyo haddii kaleba. wuxuu arkay ilkaheeda cadcad ee waxaraha leh. wuxuu arkay qoorteeda cabbaadhyaha leh. wuxuu arkay in gabadha eebbe quruxu dhammeeyey, magaceedii horay ugu sheegtay, isna kiisa uu u sheegay. wuxuu yidhi, qurux dambe oo aan doondoonayo ma jirto, ayuu isagu isku yidhi. hase ahaatee sideeda kale ayaan doonayaa inaan u barto. markii ay dhammaysteen dhirtii uu u goynayey oo hawsheedii uu la dhammeeyey ayuu weydiiyey reerkoodu meesha uu degan yahay. way u sheegtay. waxay isku afkarteen inay u soo cayaar gudaan iyagoo ah bulsho geel jire habeenkii ku soo fool lahaa. maalintii ayaa la fara badatay dalmar. wuxuu gaadhsiiyey geeljirihii meesha deganaa raggii cayaarta yaqiinay oo isagoo ka mid yahay inay is urursadaan. goor aanu geela soo carraabin jirin ayuu soo carraabiyey, ilaa wuxuu rabaa goor hore inuu u cayaar gudo dulmar reerkoodii isaga oo wata bulsho geel jire. duulane ayaa yidhi, war xaggaad geela u ulaysaa? waa goor hore haddaayoo kale maad xeran jirin. war naga aamu buu yidhi, waanu cayaar gudaynaaye. marka wuxuu yidhi, oo aniguna cayaar gudka ma raaci karaa? wuxuu ahaa kuray. wuxuu yidhi, maye geelayaynu uga wada tegaynaa. ragga waaweyn baa cayaar gudaye, markaad ila ekaataad cayaar gudi doontaaye. joog hadeerto labadeena keliya geela wadnee. raggii uu soo urursaday geeloodii bay u yimaadeen. goor hore ayay waxay fiidadbadeen hala dhowra oo xilkas ah. halaha xilkaska ahi waa kuwa sidigta ah iyo kuwa igadhka ah oo caanaha badan leh. markii ay sii maaleen wixii ay doonayeen oo ka sii maaleen geelii xilkaska ahaa ayay waxay ku tubadeen dulmar gurigoodii. duleedka ayay cayaar ka tumeen. way maqashay dulmar codkii dalmar. markaasay dhoosha ka qososhay. kolleyba in loo oggolaan doono inay la cayaarto ragga way garanaysay oo dhaqankaas sidaa ahaa. markaasi waxaa heesay dalmar. wuxuu yidhi, waa dadoo la cuni maayee dal shisheeye geyn mayne sodohay gabadha soo saar. rag kaloo raggii kale ah ayaa iyaguna heesa tiriyey. waxaa la soo saaray dulmar iyo gabadh kale. habeenkii oo dhan ayay barbaartii rag iyo dumarba wada cayaarayeen. waxaan cayaar iyo hees iyo haasaawo hufan ahayn meeshaa kama dhicin. wax kale lama aqoonin. markay habeenkaas halkaa ku kala tageen
ayuu u arkay inay dulmar tahay, dalmar u arkay inay hoobalo tahay xagga cayaaraha, ayuu wuxuu jeclaaday inuu aad u sii barto oo wax uga sii ogaado. maalin dambe ayuu wuxuu sameeyey goor aroora ayuu reerkoodii yimi isaga oo iska dhigaya baadidoon. wuxuu u yimi dulmar oo weel culaysa, iyada oo dhar cad gashan oo cusub, haddana wax ku ba'sanaa culaygii ma jirin. markii ay la hadlaysana weelka ay culaysay meel caws ah ayay ku foorarisay. dabadeedna halkii ayay iswaraysteen oo uu weydiiyey baadidii. way garatay baadida uu doonaya inay iyada tahay, aanu cid kale ahayn. haddana intuu hore u gudbay ayuu reerka geeloodii barbaartii la joogtay intuu u tegey ayuu baadi weydiiyey. markii horese dhinaca ay gabadha weelka ku culaysay ayuu soo maray. dalmar waxaa dhacday inuu ogaaday inay dulmar tahay gaari. maalin dambe ayuu wuxuu ogaaday bal xoolaha marka ay la joogto sida ay ku tahay. dhowr jeer ayuu ka soo kordhacay iyadoo adhi la joogta ama iyadoo awr caraabinaysa. wuxuu arkay dhinacaas inay kartidaas ay leedahay, inaanay adhigooda iyo awrtooda aanay midna mid dhaafin, neef neef ka dhaafin. waxaanu u arkay in ay tahay qof aad iyo aad u fajig. markii dambe waxay la noqotay inuu ogaado gabadha gabadhnimadeeda, in ay hore cidi u taabatay iyo in kale. waxaasba lama aqoon, hase ahaatee isagaa doonayey in laabtiisa uu ku dejiyo. maalintii dambe ayuu u yimi iyada oo gurigii joogta keligeed oo caws samaynaysa. markaas ayuu isla soo taagay oo bariidiyey. goortii ay isnabdaadiyeen oo hadal badan aanay is odhan, ayay cawskii ay samaynaysay ayay u fidisay dacal si uu ugu fadhiisto.